degmada Raagacele ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka jira biyeeri aad u baahsan iyadoo aysan degmadu lahayn ceel biyoodyo leh biyo macaan ah oo dadku ay cabi karaan. Gudoomiyaha degmada Raagacele oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in qiimaha fuustada biyaha uu marayo $6 dadkuna aysan awoodin lacagtaasi isagoo ka deeriyay xaaladda biyeerida ka jirta degmada. biyaha xaggooda haddii aanu soo waabto kan ugu daran oo dhibka ka taagan yahay waa biyaha fuuskada biyaha $6 ayay fuuskada biyaha ay hadda maraysaa wayna kasii gudahoo koray usii soconaysaa marka dadkii waxaa khatar ah biyo ay cabaan inay dhunag waayaan khatar ah arrinkaas dhowr jeer horena waa ku celceliyey. ugu dambeyntii gudoomiyaha ayaa qurba joogta ka soo jeeda gobolka Shabeellaha Dhexe maamulka Hirshabeelle iyo dawladda Soomaaliya ugu baaqay inay ka qayb qaataan sidii loo heli lahaa ceel biyoodyo leh biyo macaan si looga gudbo biyeerida ku soo laalaabatay degmada iyo deegaanada hoostaga. dawladda federaalka waxaan ka codsanayaa iyo dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe jaaliyadaha dibadda ganacsatada Soomaaliyeed iyo hay'adaha caalamiga oo deeqaha bixiya intuba inay nala soo gaaraan si naga caawiyaan sida aan heli lahayn ceelkaas marka tan ugu loogu daran taas waa biyaha.